يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد ma lii ogol yahay dadka kale inaan alle u weydiiyo dembi dhaaf ducadeyda gaar ahaaneed marka aan alle u ducaysanayo haddii arrintaasi waajib tahay sideen u samaynayaa arrintaasi ma ahan awoodid balse waa arrin la isku dardaarmay marka aad ducaysanayso waxaa waajib inaad muslimiinta kalena u ducayso muslimiinta ragga ah iyo kuwa gabdhaha ahba arrintaas waxaa lagu sheegay dhowr meelood oo ka mid ah qur-aanka sida lagu sheegay qur-aanka suuratu Muhammad suurada 47 aayadda 19 una dambi dhaaf weydii naftaada iyo mu'miniinta rag iyo haweenba arrintaas macnaheedu waxa weeye inaad naftaada alle dambi dhaaf u weydiido sidoo kalena mu'miniinta ragga iyo dumarka ahba aad u weydiido waxaa jirta duco uu ku ducaystay nabi nuux calayhi salaam suuratu nuux suurada 71 aayadda 28 markii uu ducaysanayay sayyiduna nuux calayhi salaam rabbiyow u dambi dhaaf aniga iyo labadayda waalid iyo ruuxii gala gurigayga isagoo mu'min ah rag iyo haweenba nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam xadiis ku jira sunan at-tirmidhi nambarka 3385 nabiga sallallahu alayhi wasallam marka uu doonayo inuu dadka kale u duceeyo nafsadiisa ayuu ka bilaabi jiray rabbiyow ii dambi dhaaf kadib wuxuu dhihi jiray ilaahu u dambi dhaaf muslimiinta rag iyo dumarba iyo intaa wixii la mid ahba laakiinse waa waajib inaad digtoonaataa dadka kale aan muslimiinta iyo mu'miniinta ahayn ilaahay dambi dhaaf uma weydiin kartid maxaa Allah subhanahu wa ta'ala quraanka ayuu ku leeyahay suuratu tawba suurada 9 aayadda 113 kuma haboona nabiga iyo kuwa rumeeyay xaqa inay u dambi dhaaf weydiiyaan mushrikiinta yacni gaalada haba ahaadeen qaraabadoode markay u cadaatay kadib inay ehelka naarta jaxiima yihiin laakiinse waa suurtagal waxyaabo kale inaad ugu duceedo inaad dadka aan muslimiinta ahayn aad ugu duceedo kale caafimaad tharwa iyo lacag iyo waxaas inaad ugu duceedo adduunyada ah arrintaasi nafsad ahaanteeda way iska bannaan tahay ducatan ugu wanaagsan ee u suurtagal tahay inaad ugu duceedo dadka aan muslimiinta iyo mu'miniinta ahayn waa hanuun ducada ugu wanaagsan ee qof mushrik ama gaal ah ee aad ugu duceysaahi waxa weeye hanuun wuxuu ku yiri nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam xadiis lagu sheegay sunan at-tirmidhi 3681 nabigu wuxuu yiri ilaahayow islaamka ku cusay oo ku xooji labada nin midka looga galgacayl badan yahay agtaada abi jahl ama umar bin khadaab ilaahayna hanuunkii wuxuu siiyay umar bin khadaab radiyallahu anhu oo diinta islaamka ayuu soo galay sidaa darteed waad awoodaa markasta inaad u duceedo kuwa aan muslimiinta ahayn ee gaalada ah waxaad ugu duceyn